ra'iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble ayay maanta u buuxsantay sanad xilhayn ah kadib magacowgiisii 365 caana maal ka hor muddadaas uu xafiiska joogay ayaynu raadraac ku samaynaynaa wixii u qabsoomay waxyaabaha ka qabiyoobay iyo kuwii ka qaldamayba sida la sii ogaa rooble oo siyaasadda ku cusba waxa uu dhex galay badweyn siyaasadeed oo hirarkeedu ay si weyn u kacsan yihiin waxa ayna u kala jabnaayeen laba garab koox doonaysay inay xukunka sii joogto oo uu hogaaminaya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo koox doonaysa inay xukunka kala wareegto oo kala ahdaaf iyo siyaasad ah saacado ka hor magacaabistiisii waxaa la gebagabeeyey heshiis doorasho iyo habraacyo fuliye ahaan loogu magacaabay 17 Sebteembar sanadkii 2020 si kooban rooble waxa uu soo maray 3 heer ama xaaladood kuwaasoo la socday hadba duruufaha siyaasadeed ee dalka kow xaalad isgaabin ah bilowgii rooble waxa uu muuqday nin degan oo jawiga siyaasadda kor kala socda waxa uu ku mashquulsanaa sidii uu u dhisi lahaa xukuumaddiisa u qaabayn lahaa howlaha shaqo ee sugaya una maarayn lahaa howl maalmeedka xukuumadda xaaladdan dad badan ayaa dhaliilsanaa kuwaasoo ku safahaa mucaaradka hubka qaatay waxay u arkayeen inuu yahay gudin iyaga loo isticmaali rabo siyaasiyiinta koonfurta ayaana xaaladdan u arkayay nin aan saamayn badan yeelan doonin siyaasaddana ku hallaabi doona waana halka ay ugu magacdareen lehelowga siyaasadda taas oo ahayd mid si weyn loo safriyey 2 xaalad isbarida khilaafkii keenay in hubka la qaato ee ka dhashay muddo kororsigii iyo in doorashada la isku qabto ayaa rooble u hayd xaalad uu dadka Soomaaliyeed isku baro waxa uu dhaqmay nabadoon u muuqday dhexdhexaad kaasoo si degan u maareeyay dhammaan xaaladihii kacsanaa ee caasimadda waxa uuna ciidamadii kala duwanaa ee dhufaysyada qotay ka saaray caasimadda bishii Abriil ilaa iyo May ee sanadkan intii lagu jiray marxaladda xilliga dhexe rooble waxa uu ahaa nin labada dhanba u dhaxeeya dheelitirka doodahoodana isku wada oo dhammaan dhinacyada oo dhan xeeriya sida ay hadba marxaladdu tahay 3 xaaladda shakhsiyadda iyo shaqada ee ra'iisul wasaare rooble tan iyo markii loo dhiibay howlgalka fulinta doorashada waxa uu rooble muhiim u noqday siyaasadda Soomaaliya waxaanu horseed ka ah isbedeladii la hubiyey ee gudiyadii doorashooyinka kulamadii lagu qabytirayay hanaanka doorashada iyo hirgelinteedaba dhexdhexaadnimadiisa ayaa keentay in qolo kastaaba hawsha faraha uga qaado waxa uu muuqday inuu dalka ka gudbin doono isgoyska kala guurka ha yeeshee falcelinadiisa iyo ficiladiisa ku aadan doorasho dhexa ayaa la rumaysan yahay inuu hal mar liqay waana halka ay ka soo baxday in mashruucii doorashadu uusan haysan hoggaan hagi kara waqtigan kana maran ku milanka siyaasadda ee dhinacyada siyaasadda sida ay ku eedeeyaan garabyada is hayaan qaarkood 4 dhaawaca ay u keentay dhexdhexaadnimadiisa dad badan ayaa rumaysan in rooble si sahlan isu dhaafiyay meeqaam uu si fudud ku helay taasoo ahayd inuu dhex u noqdo dhammaan dhinacyada balse la safashadiisii mucaaradka iyo inuu xilal u magacaabo ayuu ku waayay inuu hoggaan u noqdo mashaariicda doorashada waana dhaawaca ugu weyn ee gaaray rooble waana sababta keentay in dowlad goboleedyadu shirkooda garowe ay hoos u dhigaan kaalinta ra'iisul wasaare rooble loona arko nin ay ishayaan madaxweyne farmaajo ee aysan ahayn arrimaha doorashada nin ay ka go'an tahay 5 mucaaradku waxa ay u arkayaan halyey ay gacanta ku hayaan midowga madasha mucaaradka oo mar u arkayay nin aan siyaasadda shaqo ku lahayn lana keensaday waxa ay hadda u arkaan injineer siyaasadeed oo falkinaya marxalado adag oo xagga siyaasadda ah waxa ay u muujinayaan taageero iyo garab istaag dhammaystiran balse laftirkooda waxa ay walwal ka qabaan in sida ay rabaan u noqon waayo sidii ay marar badan hore ugu eedeeyeenba 6 hadda iyo aafada siyaasadda ra'iisul wasaare rooble waxa uu hadda dhexda ka taagan yahay duufaan siyaasadeed oo aan dhinacna u dhaqaaqayn waa marxalad laga sugaya dadejinta doorashooyinka dhinaca kalena ay ku foogan yihiin mucaaradid xooggan oo uga imaanaysa madaxweynihii magacaabay waana aagga ugu daran ee aan la aqoon sida uu ku maarayn doono 365 cisho oo maalmaha badankoodu soo jeed iyo dhafar ay u badan tahay ayuu ra'iisul wasaare rooble ku qaatay xafiiska ku yaalla bugcadda fiila Soomaaliya haddana waxa uu bartanka kaga jiraa shabakado waaweyn oo mashquul siyaasadeed iyo kuwa ku aadan xagga soo jeedka iyada oo si weyn indhaha loogu hayo hanaanka uu maarayn doono
dhammaan marxaladaha wakhtigan ee ku aadan xilhayntiisa. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada? ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka, higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.